kambaniga uu iska leeyahay Elon Musk ee loo yaqaan Starlink oo internetka bixiyo ayaa Soomaaliya ku soo socda heshiiskaas maanta la wada saxiixday. muxuu yahay Starlink qaabka internetka uu bixiyo sidoo ugu duwan yahay internetada kale ee caajiska badan ee hadda heesataan waxaas oo falaqeyn doona laakiin marka hore saxiixa maanta wasiirka matalayay dawladda federaalka Soomaaliya iyo soo kale dadkii matalayay kambaniga Starlink horta waa kana hadal yar oo kooban ilaa oo ay tahay taariikhda 13 bisha afraad 2025 waxaa farxad noo ah haddaan nahay bahda wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliya in hay'adda isgaarsiinta qaranka ay ruqsad siisay shirkad caalami ah ama international ah oo lagu magacaabay Starlink. shirkadaas oo ka shaqeyn doonta dhinaca isgaarsiinta muddo dheerna ay hay'adda iyo shirkadda u socotay sida oo maarayaha soo dhawaada marka Starlink muxuu yahay maxay tahay Starlink sababta dunida oo dhan ay aad ugu jeceshahay Afrika hadda 13 dal ayaa Starlink la keenay muxuu yahay sidiisaba Starlink internetkan xooga badan orodka badan horta reer YouTube reer TikTok dak Soomaali jooga Soomaalida YouTuberka Soomaali joogo TikTok lay jaamacadaha macallimiinta haliga gaarsiin muuqaalkaas macallimiinta ardayda hadda wixii ka dambeeyo barnaamijkan markuu hirgalo oo alaabtii Starlink diishasheen yar waa si fiican u sharxi doonaa markii la keeno Soomaaliya waxay ka mid noqon doontaa had Soomaaliya waxyaabaha ka jirin tusaale ahaan waxaa ka mid ah online learning waxyaabaha jaamacadaha online ka lagu barto iyo adduunkii ina la socon waxyaabahaas oo dhan waxaa dib nooga dhigay oo inta badan Soomaalidu wadada aad u dadaashaa laakiin internet xumo far badan aan jirto hadda suuqyada magaalada Muqdisho Boosaaso Kismaayo Baydhabo Beledweyne waxaa haysto kambaniyada localka ah aniga inta xasuusto Hormuud iyo hebel iyo kuwa badan ah jir Golis waa maqlay isoo taxay idinka taqaariin ani dalka 15 sano ka soo maqanaay kuwaas marka data ku siinayaan datadaas silac iyo saxriir lagu isticmaalaa upload ka xitaa video muuqaalka marka dhalinyarada soo duubaan silac ay ka maraan wifi qofka hebel markuu wifi leeyahay la wada aadi iyo ka dhacdo dhibaatadaas oo dhan waxay u muuqataa inay soo gabagabowdo doonto way gudagalna marka Starlink waxaa iska leh Elon Musk ninka awal taqaanaan billionaire-ka waa ninka kaalinta koowaad adduunka maanta ugu lacagta badan waay yaa xasuusto dagaalka Ukraine markuu bilowday Ruushka uu ku duulay Ukraine yaa xasuusto 2 sano aan 3 sano ka hor adeertan laga joogo wixii internet ahaa iyaga ay haysteen sida shutdown ku dhacay oo ninka la yiraahdo Ruushka waa nin aad tiknoolajiyada ugu fiican Ukraine-tii qaab muuqaalo u duubaan qaab ay u wada xiriiraan waayeen mobilada dhan sabna dadka xasuusto Elon Musk wuxuu sameeyay wuxuu u diray Starlink waa satellite yar oo aad u yar waaye oo hadda ku ka waran 6,000 oo satellite oo yar ah hawadaas ku jiro Afrika Asia Mareykanka meel walba isaas u dul socdaan waxa iska leh Elon Musk iska leh internetka Starlink awgiis ayaa waxay noqotay in saraakiish ugu waaweyned ee militariga dagaalka Ukraine inay ku wada xiriiraan taas waa tusaale yar ee fududa marka sheekada meeshaas ka bilaaweena Starlink lagu sheegayo waa satellite aad u yar 6,000 mayro oo yar alaab yar oo biskuleetiga la eg ayaa hawadaas ka buux saas u socdaan ujeedadoodana waxay tahay internet speedkiisu aad u sareeyo in dadka ay siiyaan Afrika 13 wadan already ka faa'iideystay waxaa ka mid ah Kenya hadeertaan speedkooda internet Soomaalida ka joogto ogyihiin dadka isticmaala Starlink speedka waa saas waay video dhan oo 30 daqiiqo soconaya oo YouTube soo upload gareynaysa bufferkii iyo iska dawareegii iyo salicii waa ku dahay marka saa loo sameystaa waxay sameynayaan marka dawladda maadaama dawladda Soomaaliya maanta ay saxiixday kulay company contract la siin doona oo inuu Soomaaliya u maleynaya markaba imaanaya markabku wuxuu keeni doonaa alaabo waxaan la eg mujada alaabta hadda gacanta ku hayo alaabtan hadda gacanta ku hayo ma ahan waxa dish ma aha sabuurad waay alaabtan waxba ku qortaa laakiin kan uu la eg yahay waa dish yar oo gurigaada korkiisa ama jingada korkeeda ama kushinka korkiisa ama iridaada meel ku dhijinay adiga dadka aysan ka fujin karin
xitaa marka qaar guriga gudihiisa lagu dhigsa adigu waa diish yar yaa xasuusto waagii telefishinada soomaaliya 2000 maxkamadaha markay imaanayeen soomaaliya iyo wixii inta kasoo horeysay diishash yar yaraa imaaday janaalo carabaa la daawin jiray carab iyo waxaasaa la daawin jiray adi diish waaye guriga aad soo dhiganaysid diishka markaa guriga soo dhigatid diishkaas wuxuu ku rakimayaa oo toos ula xiriirayaa satellite-kaas hawada ku jiro ee Starlink ah markaasa speedka marka bil walbo maxaa la dhihi horta wax sida hadda internet hadda haystaan oo kale ma kan intiisa badan Starlink waa wax loo yaqaan fixed amount waaye lacag dhiibaysa ana waxa u maleynaa $200 camal inay tahay diishka soo gadashiisa iyo rakabidiisa iyo wixiisa sida aniga aan ogahay ilaa hadeertaan dalalka faraha badan ee hadda Starlink haysto bil walbo lacag laga qaadayo iyo qof irid ku soo gargaraacay lacagta internetka keen iyo waxaas ma jirto data ka dhamaanayso oo mobilkaadu uu ku dhahayo lacagta way ka dhamaatay saaxiib dib ugu soo shubo iyo kala orod muuqaalkiya bar iga go'ay iyo waxaas iyo data kala soo gadanaa iyo saaxiibo ii soo dir iyo shakaas way dhamaatay fixed amount diishka soo dhiganaysa satellite-kaas toos oo la xiriiriyay marka muhiimadda inta badan waa jaamacadaha ardayda inay siiyaan access maadaama adduunka hadda uu noqday tuulo yar oo internetkaas ay ka buuxaan data aad u far badan xitaa buugaag free aad kasoo download garaysan kartaa oo jaamacadda la xiriiro xisaab physics hebelo wax walbaba ardayda marka faa'iido far badan ugu jirto waa haddii si saxda loo isticmaalo dadka YouTube-leeda lacagta raba inay ka sameeyaan ayagana fursadaas dahabiga ah ayaa ugu jirto reer TikTok dadka Soomaaliya joogo ayagana speedka aad iyo aad ayuu u sareeyaa Starlink waxa u maleynayaa hadda sida kooban ah idinku sharxi karo kulley aniga waa sidaas lacagta hal mar ay dhiibaysaa diishka soo gadanaysaa adiga iyo Starlink ama Elon Musk cid idin dhexeyso wada xaajood ma jirto website ajiri xitaa oo log in iyo wax aad samaysanaysid hadaa rabtid in waxyaabo kale aad soo gadatid iyo barnaamijyo noocaas oo kale marka hambali aan leenahay ummadda Soomaaliyeed barnaamijkan Starlink-ga ee soo socdo waa barnaamij runaantii aad loo wada sugay